بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan kasoo dhaweynayaa mar labaad dhammaan walaalaha ku xidhan programkan adkeynta qarannimada Somaliland ee uu soo diyaariyo ururka adkeynta qarannimada Somaliland SPA Somaliland Patriots Appeal aad baan idiin soo wada dhaweynayaa waxa aynan ku xidhan programkan taa waanu ka cudur daaranaynaa insha Allah walaalaha hore uu maaragtay yani aan caawa inagula jirin bacdamaaba aan programka la sii iclaamin doontaan programka oo kala socon doontaan pageka ururka adkeynta qarannimada Somaliland uu ku leeyahay Facebooka iyo waliba channelkiisa YouTube-ka insha Allah caawa waxaan soo dhaweynayaa programka ila daadihinaya walaalkay Siciid Ibrahim Jirde عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawow walaalo adigoo ah nin runtii aad ugu xil dheer sharciyada iyo dastuurka Somaliland amba waxaynu u naqaano legal case-ka Somaliland iyo sovereignty-geeda caawa waxaynu ka hadlaynaa arrintaa marka waxaynu caawa isla qaadaa dhigi doonaa sharciyada madax bannaanida Somaliland insha Allah aad baan walaal ku soo dhaweynayaa waad mahadsantahay Muna. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. aad baan kugu mahad celinayaa Muna programkan yo hawshan wanaagsan ee u haysid qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa dadkeena imanka aynu doonaynaa inaynu aad ugu wacyi gelino inay Somaliland tahay dal jira oo madax bannaan yani shacabka Somaliland dagaalo badan bay soo galeen hawl badan baa ku dhacday waxa laga fogeeyay oo shacabka Somaliland ka fogeed 1960 ilaa iyo intaanu dalka xoreeynay waxaanu ka dheerayn xogta dawladnimona waa muhiim marka dadka in yar baa xogta dawladnimo haysa inna waa in maxaan ku rahdayay xagga sharciyada iyo marka loo eegayo nidaamka dawladnimo iyo qaabka dawladnimo marka qofku hadii uu ka maqan yahay macluumaadka ama qaabka dawladnimo ay tahay wixii la yiraahdo waa tahay uu iska aqbalaa hadii la yiraahdo dawlad matiid waa aqbalaya hadii la yiraahdo Soomaaliya ictiraaf ma laha waa aqbalaya marka waxyaabaha doonayna inaan ka wacyi gelino dadkeena oo aynu doonayna in imka dadkeenu aynu ka dhisno oo aynu dhaahno maanta alxamdulillah rabbil caalamiin dadku waxay u badan yihiin dad mutacalimiin u badan yihiin iskaarsiinta casriga soo baxdayna wax walba way fududeynaysaa marka waxaanu doonaynaa inaan dadka ku wacyi gelino dawladnimadeena iyo qaabka dawladnimadii Somaliland ay ahayd 1926 June 60kii marka haddaynu ku horeyno ta Somaliland waxa shacabka iskaga khaldama Soomaaliya waxay ku doodaa Somaliland waa naga mid dadkeenu way og yihiin dadkii waliba maanta Somaliland way og yihiin inay 26 June dawlad gaar ah ahayn isma weydiilo ma yiraahdo seen Soomaaliya uga mid noqonay ama waa maxay waxaan ay Soomaaliya inagu sheeganaysaa moogta marka waxa weeye waa inay xog la'aanta ka jirta xog la'aanta dawladnimo ee ka jirta weeyaan shacabka gudihiisa Somaliland shacabkiisa ka dhex jirta marka haddaynu ku bilowno Somaliland horta Somaliland dal mustacmarada ma ahayn Somaliland waxay ahayd protectorate waxay ahayd maxmiyad bay ahayd ilaahay ha u naxariisto odayaashii markii Ingiriisku yimid Somaliland heshiis bay la galeen heshiiska ay la galeen wuxuu ahaa heshiis sax ah oo shaqeynaya buu ahaa waxay kala qorteen sidii waxay isweydaarsanayaan ganacsigiisa in loo ilaaliyo badda marka waxa ku jirtay heshiiska ay kala qorteen waxa ku jirtay waadna ilaalinaysaa dushaad naga ilaalinaysaa maalintaan ku nidhaahna naga tagna waad naga tegaysaa marka horta dawlad bay iska ahayd Somaliland marka saa ay heshiiska wada galayso Ingiriiska maynaan ahayn marka mustacmarad yani intuu ina soo galay Ingiriis inama qabsan bilaa shuruud la'aan iyo magaranaysaa dal uu kusoo duulay maynaan ahayn marka qodobada ay ku heshiiyeen
وفرق قوده حيا كولونيالكا iyo protectorka marka inaku waxa inoo dheeraa waxaanu nidhi maalintan ku dhidhaahna ingiriis wadna dhaafaysaa inuu ina dhaafo marka horta Somaliland sideedaba marka hore u madax banaaneed oo ay u ahayd dal jira markaan u nimaadno 26 June Afrika ara kacday Somaliland gudaheeda shacabka Somaliland waxay aradu ka kacday dhulkan Howd Reserve area ayuu ingiriisku bixiyay wuxuu siiyay Ethiopia isagoo heshiis kula galay shacabkii Somaliland arinka aad bay uga caroodeen ara ka timid halka waxay keentay in marka la yiraahdo ingiriis waxayna hayna siiyaba marka Michael Maryama iyo markii ay ingiriiska ila hadleen tageen ingiriiska oo runtii Michael Maryama wuxuu ahaa nin xagga sharciyada sharci qaanka kaliya Somaliland marka ay lahayd buu ahaa waxa doodii ay ka soo dhex baxday dhulkiina Howd Reserve area waxaad ku soo ceshan kartaan idinkoo dawlad madax banaan ah oo sharciyad caalami ah baad ku soo ceshan kartaan marka hal leen siiyo dawladnimadiina marka qaabka dawladnimada Somaliland ay ku timid qaab dagaal iyo halgan la galay iyo maxaan ku raadey dib la soo maray ma jirin wayna wada ognahay ingiriis la dagaalamay ma jirin marka tiiba la soo qaatay odayaashayna way tageen oo markii dhamaadkii kontameeyadii 59 meelahaas waxa la soo gartay marka 60ka markii 60kii la soo gaaray waxa la soo gartay in dastuur la sameeyo oo maxaan ku raahday dastuurka la sameeyana dawlad la dhiso Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad dawladda isna baarlaman la sameeyo oo baarlamanka ay ka soo dhex baxdo dawlad iyo wasiiradiisii marka sidii baa ay u dhacday golihii wasiirada waa la dhisay baarlamanka waa la dhisay doorasho la galay waxa laga soo dhex saaray waxa soo baxay baarlaman iyo golo wasiira soo baxay iyo ra'iisul wasaare oo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Haylaan naxariisteen 26 June waxaan jeedaa 4 May 1960kii halkan ay ka tageen wafdiga uu hogaaminayo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ingiriiska tageen waxay kula soo galeen heshiiskii ahaa in madax banaanidii Somaliland la qabto waqti la cayimo waxa la cayimay 26 June waa marka ay joogaan waa 4 May in Somaliland madax banaanideedu dhameystiran ay leedahay la saxayo oo sida ingiriis ay ku kala amba baxayno marka kaas waxa weeye agreementkii heshiiskii madax banaanida ay soo saxday boqorada ingiriisku kana waxa weeye reportkii laga qoray ee laga bixiyay sharciyadeed qaabka dawladnimada Somaliland ay noqonayso markaad eegtid markaynu ku noqono marka Somaliland dawladnimadeeda halka aynu doonayno inaynu shacabkeena iyo dadkeena aynu ka fahansino waxa weeye markii 4 May la saxeexay la soo saxeexay ingiriiska soo saxeexay in Cigaal iyo wafdigii la socday ee la soo noqday waxay noqotay 26 June in la qaato xorriyad 26 June markay timid waxaynu noqonay dawlad shuruucdeedii caalamiga ahayd oo dhan u dhameystiran yahay waxaynu ka mid noqonay dhammaan international organizationskii jiray ama ha noqoto United Nationska membernimadeedii ama ha noqoto international organizationska kuwa waxa la yiraahdaa hay'adihii UN-ka hoostaga sida ICAO ITU oo ah isgaarsiinta ICAO oo ah maxaan ku raadey hawada WTO oo ah tii ganacsiga WHO ILO oo ah International Labour Organization dhammaan waxa soo dhan waxaan kaga mid noqonay heshiiska madax banaanida aynu kala saxeexnay ingiriiska marka Somaliland marka ay noqotay inay tahay dal madax banaan oo heshiis caalami ah gali karta waxa halka ku qoran article ay yiraahdo oo charterka UN-ka article-kaas waxa weeye waa 102 article-kaas wuxuu dhigayaa international agreement-ka la galo ee dawladda ay gasho United Nationska in lagu registereeyo 102 waa ka lagu diiwaan geliyo laguna daabaco marka Somaliland inay dal madax banaan tahay markay kala saxdeen dawladda Ingiriiska iyo Somaliland waxa si toos ah loogu gudbiyay maxkamadda caalamiga waxa si toos ah loogu gudbiyay article-ka 102 oo ah halkan ku qoran yahay waa qoraalkii laga sameeyay waa reportkii laga qoray sharciyadeed si loo gudbiyay dawladnimada Somaliland
marka 102 waa article waa qof kasta oo imanka daawanaya wuxuu ku dhufan karaa Charter of the United Nations waa article caadi ah waxa lagu faafiyaa oo lagu rejistareeyaa international agreement-ka la kala galay caalamiga ah waa heshiisyada caalamiga marka heshiiskii ugu horeeyay caalamiyeenu kala saxanay waxaanu kala saxanay dawladda Ingiriiska kaasa lagu rejistareeyay article kaasa ayaa lagu faafiyay marka muran kama taagna madax banaanida Soomaaliland iyo Soomaaliya inay tahay dal sovereign state ah waxa cadeynayna tahay dal sovereign state ah heshiiska lagu faafiyay 102 article-ka charter-ka UN-ka marka saas horta dawladda Soomaaliland ay ku taabagashay oo ay kaga mid noqotay United Nations-ka marka aan ku leeyahay waxa kaga mid noqotay United Nations-ka ma aha member ahaan laakiin waa sharci ahaan way rejistareeysan tahay waxa ka rejistareeysan tahay UN-ka iyo maxkamadda caalamiga oo article-kaas 102 iyo charter-ka UN-ka ah ayaa ku rejistareeysan tahay marka saas horta ku tahay sovereign state oo nin kasta oo sharci yaqaan ama nin kasta oo lawyer ah marka la Soomaaliland waa sovereign state halku qodobka koowaad uu ka doondoonay wax weeye maxaa lagu gudbiyay heshiiska lagu gudbiyay UN-ka lagu gudbiyay maxkamadda caalamiga lagu gudbiyay Soomaaliland sovereign state-keedu waa kee taas markaa soo baxaysa 102 gaas soo baxaysa marka nin kasta oo sharci yaqaan markuu daba galo arrinka in Soomaaliland sovereign state tahay cadeynteedu waa inta heshiiska Ingiriiska ka saxanay dawladnimadeenu kala saxanay saasaa lagu gudbiyay maxkamadda caalamiga iyo United Nations marka waxay noqotay tan ah inaanu member ka noqono UN-ka membernimada UN-ku waa wax la dalbado waa urur lagu beero dadka qaar waxay u haystaan haddaan UN-ka lagu jirin inaan dawladdaasi ictiraaf ba lahaynba imika Switzerland Geneva marka laga yimaado New York headquarter-ka United Nations-ka xarumaha UN-ka oo dhani waxay yihiin waa Geneva Switzerland 89kii iyo Australia 89kii ayay ku beereen United Nations-ka intaas oo dhanna dalal jiray bay ahaayeen ma aha qasab inaad ku beertid UN-ka oo waxa jira article-ka labaad paragraph-kiisa 6 charter-ka UN-ka wuxuu dhigayaa dawladda aan ka mid ka ahayn member-ka United Nations-ka dawladaha aan ka mid ka ahayn member-iska sida ay ula shaqeynayaan UN-ka iyo sharciyada caalamiga marka waxa weeye article-kaas waxa weeye waa article 2 waa charter-ka UN-ka paragraph 6 ayaa ina siinaya imika hadii Soomaaliland nahay anigu shakhsi waxba soo jeedinaa inayna member ba ka noqonba oo wax caadiya waa article-kaas ayna siinayo xaq baynu leenahay inaynu ahno kuma biirano UN-ka marka dadkeena yaani u qaadanin cidda UN-ka member-ka ka ah ayuunba dawlad madax banaan ah dadkeenu taas yaani u qaadanin waxa weeye United Nations-ku waa urur lagu biiro adoo madax banaan oo sovereign state ah ayaan ku biireenin waad banaanka ka joog kartaa ma aha wax qasaba marka taas waa mid oo waxa weeye membernimada United Nations-ka General Assembly-ga waxa la yiraahdaa bil walba sanad kasta bisha 9 qabta shirarka qabta waxay noqotay international organizations waxa la yiraahdaa soo UN-ka hoostaga international organizations-ka UN-ka hoostaga waxa ka mid ah hay'adaha UN-ka waxa weeye waa ICAO waa WHO waxa weeye ITU oo waa isgaarsiinta waxa ka mid ah maxaan ku raadayay tan ganacsiga dhammaan ururadaasi waa ururo waxa ka mid ah IMO iyaduna tabada ah dhammaan waxa soo ururihi waxay iyaguna yihiin waa ururo iyagu qasab ay tahay inay Soomaaliland ka mid noqoto oo kuwaasi waxay qasab u tahay ganacsiga adduunka ayaa ka waa mushtari ganacsiga adduunka imka Taiwan oo dawlad ahayn dhammaan ururada aan ku soo sheego dhan way ku jirtaa dal aan member ka ahayn ma jirto ururadaas oo dhan haddii noqoto hawadii waa ICAO haddii noqoto hawadii Soomaaliland way ku qasbantahay inay hawadeedii iyo sharciyadeedii hawada ay ka shaqeyso oo ay ICAO membernimadeedii ka noqoto marka halkan waxaan ku hayaa dhammaan haddii noqoto ICAO iyo ITU iyo WTO oo ah tii ganacsiga iyo WHO iyo ILO-daas dhammaan intaas oo urur oo ay Soomaaliland ay membernimadeedii ay u taalo oo markii hore intaanay madax banaanida qaadan
waxay associated member wax la yiraahdo waxay sugaysay in ay noqoto full member yani xubinimo dhameystiran marka inaku maalinteen waxa qoran oo ku qoran qoraalkan hayo dal walba maalinta uu qaato xorriyadda ayuu noqonayaa xubin dhameystiran marka Somaliland waxay ku jirtaa dalalka saa looga sheekeynayo marka inaynu nahay xubin ka nahay dhammaan organizationska soo dhan waa wax inoo qoran oo sharciyada inoogu jira waxa la yaalo wax sharciyo maanta inaga hor joogsan kara oo inoo diidi kara ma jirto waxay u baahan tahay markaan la xiriirnay qolooyinka ka shaqeeya United Nationska yo niman loo yaro aan wax ka weydiinay waxay yiraahdeen waxa la sameeyaa mar hadii ay markii hore madax banaanida qaadatay aanad ka mid noqonin kaliya waxaad u baahan tahay inaad imika u qoratid application waxa la cusboonaysiinayaa xubinnimadaadii yani membarnimadaadii waa wax la cusboonaysiinayo waxa la inoo oranayo ictiraaf ma haysataan ma taalo meesha kuma jirto ama waxa la oranayo sovereign state ma tiid meesha kuma jirto hadii aad hay'adii UN-ka hoostagay hadii way ku raadaan Soomaaliya sovereign state maaha waxa weeye heshiiskii aanu galnay international agreement-kii aan galnay lagu faafiyay 102 article-ka United Nationska charter-kiisa ka midka ayaa noo cadeynaya inaan sovereign state marka aanu cid hadii la masaxay ma sheegin laakiin waa ta inoo qoran weeyaan maxkamadda caalamiga aynu ka rajiskarasanahay UN kana aynu ka rajiskarasanahay marka Soomaaliland sovereign state nimadeedu Soomaaliland horta saasay ku caddahay xubinnimadeeda international organizationskaasina waa wax u baahan in la cusboonaysiiyo wax ictiraaf in la doono u baahan horta maaha inta in la gartaa horta muhiim ah Soomaaliland keeskeeda صح marka hay'adahan hoos yimaada UN-ta walaal waxa aynu cusboonaysiinaynaa membershipka aynu magaranaysaa ka codsanayno inaynu cusboonaysiino amba applicationkaasi iyada oo UN-ta laftigeeda aynaan ka codsanin membership miya United Nationska membernimadeeda inaan ka codsan ayaynu cusboonaysiinaynaa international organizationska hoostaga waayo way kala madax bannaan yihiin marka way kala madax bannaan yihiin inta laakiin way kala madax bannaan yihiin ha waayo mid walba shaqo gaar ah haysa imika hadda tirad badeedii baan xukumayaa hawadeedii baan xukumayaa qasam ma inaad member ka noqotid General Assembly-ga UN-ka waxa weeye haddaad hawadaadii xukumanaysid hay'adda gaarka ee hawada ku shaqeeya adduunka maamusha hawadeeda waa inaad horta member ka soo noqotid haddaad tirad badeedii baan xukumanayaa waxa qasab kugu ah inaad badaadii hay'adda ay hoos tagtay UN-ka waa inaad membernimadaadii u gudbisid ka soo mid noqotid marka waa mid walba shaqo gaar ah leedahay tii ganacsigu waa sidoo kale marka ma aha qasab hadii General Assembly-ga United Nationska hadda xubinimada UN-ka aanad ku jirin kuwan shaqo gaar ah hayaan moogtay taas waa ta guud la isugu imanayaan laakiin tani mid walba shaqadeedii gaarkeed bay leedahay marka maadaama mid walba shaqo gaar ah leedahay dal waliba wuu ka mid noqonayaa way hawaynu leenahay bad baynu leenahay iskaarsiin baynu leenahay ganacsi baynu leenahay waxa soo dhan waa wax shaqeeya marka hay'adahan waxa loo sameeyay inay adduunka u kala maamulaan hawa hadday noqoto hadday ganacsi noqoto waxa mid walba waxa leedahay charter gaar ah iyo waxa leedahay shuruuc gaar ah mid walba waa 400 ama 300 article weeyaan hay'adahaasi shuruucdeedu mid walba waxa leedahay 400 ama 300 ama 200 oo article bay leedahay marka mid walba sharcigeedii gaarka ah bay wadataa marka ma aha qasab aniga kule bay imaka Switzerland Australia UN-ka iyagoon member ka ahayn ayay haddana ku jireen hay'adahan kale international organizationska haddana member ka ma ahayn UN-ka oo General Assembly kuma jirin marka ma aha qasab in aad ka mid noqotid UN-ka laakiin kuwana waa qasab waayo hawadaadii maamulkeeda baa ku xiran iskaarsiintaadii baa ku xiran badii maamulkeeda baa ku xiran ganacsi hadday noqoto ganacsigii maanta dalalku markay isku imanayaan heshiinayaan ururka ganacsigu wuxuu leeyahay shuruuc uu kala saxeexo dalalka heshiiska gala hadii la kala baxayo qaab lagu kala baxo marka mid walba shaqo gaar ah leedahay marka way ka madax bannaan yihiin isku mar xidhna membernimada UN-ka iyo kuwan membernimadoodu waa kala programkii habeen hore ee aad nagala qayb gashay waxaad sheeko ku soo qaaday
Somaliland inay trade unionka amba hay-adda maxaa la yidhaha ganacsiga ay ka tahay member laakiin isla waqtigaas Soomaaliya oo dee ahba maanta dal la aqoonsan yahay ayna ka ahayn member arrintaa walaal ma noo sharxi kartaa waayo su'aalo badan baa runtiina laga soo weydiiyey waa saxo waxa weeye marka aan kuleeyahay sovereign state bay Somaliland tahay oo qaabka sharciyeed ee UN-ka loo gudbiyay bay sovereign state ku tahay waxa jira heshiisyada aynu la galnay Ingiriiska ee aynu u gudbinay ee loo gudbiyay maxkamadda caalamiga waxa ku taala dhammaan treatieskii Ingiriiska aynu ka dhaxalnay inay Somaliland dawladnimadeedu ku shaqeynayso treatieska Ingiriiska aynu ka dhaxalnay waxa kamid ah ururka ganacsiga waxa kamid ah taa isgaarsiinta waxa kamid ah taa hawada waxa soo dhan Ingiriis baa hayay marka waa heshiisyada aynu ka dhaxalnay Ingiriiska waxa qoran dal waliba markuu madax banaanaado cidii markaa u ahayd maxmiyada u ahaa ama mustacmarada u ahaa treatieskii ay heshiisyadii ay markaa ku jirtay ayaa lagu wareejinaya marka dawladda Somaliland Ingiriis markaynu ka qaadanay madax banaanideena wuxuu nagu wareejiyay dhammaan wixii international organizations ka hoostagay oo dhan isgaarsiintii wuu nagu wareejiyay Ingiriis hawadeena wuu nagu wareejiyay badeena wuu nagu wareejiyay ururkii ganacsiga wuu nagu wareejiyay marka Somaliland waxay member uga noqotay ururkii ganacsiga adduunku shaqadiisu waxay ahayd shaqo aan looga maarmeynin sharciyada oo ururada kale waxa laga yaabaa in wax laga khaldi karo laakiin ka ganacsigu waa wax ku xidhan ganacsi adduun buu ku xidhan yahay oo sharciyada adduunku waa laf dhabar bay u tahay halbowlaa waynu ognahay maanta dagaalka adduunka ka socda wuxuu sarka ku hayaa inta badan waxa weeye waa ganacsi weeyaan markay noqotay xaaladda la qiimeeyay Somaliland iyo Soomaaliya ee uu qiimeeyay ururka ganacsiga ee adduunku GATT ama WTO markay qiimeeyeen Somaliland maadaama ay tahay sovereign state membernimadeedii waa loo daayay yaanayba doonanin laakiin waxay yiri okay Somaliland waa sovereign state waxay ka ahaanaysaa waa xubin buuxda baa yiro membernimadeedu way leedahay waxay noqotay Soomaaliya markii la qiimeeyay may buuxinin shuruudihii madax banaaniyad ee dalaha marka sida Soomaaliya looga saaray waxa weeye waxay buuxin weeyday dal madax banaan inay noqoto way buuxin weeyday ganacsiga adduunkuna wax sahlan maaha waa wax marka ganacsi la galay sida adduunyada waxa la soo qaaday waxa weeye sharciga ganacsiga adduunka moogtay marka iyagoo aad u ilaalinaya oo shuruucdaasi aad u ilaalinaysa adduunka ganacsigiisu si fiican ugu kala socdo waxa soo baxday inaanay Soomaaliya aanay buuxinin dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal madax bannaan uu leeyahay marka waxa loo adeegsaday article-ka 330 ee ka midka ah article-da ka midka ah waxa weeye WTO ganacsiga waa article-ka 330 qof walba oo isweydiinaya si Soomaaliya uga mid noqon weyday ururka ganacsiga adduunka article-kaas loo adeegsaday waa 33 waa article-ka 330 ee uu leeyahay ururka ganacsiga adduunka waa charterkiisa ka mid tahay waxa ku taala dalku hadduu noqonayo member ka noqonayo WTO ama GATT ka noqonayo member waa inuu buuxiyo oo uu ahaado dal uu dhameystiran yahay sovereignty-kiisa madax banaanidiisa marka Soomaaliya dawlad madax banaani u dhameystiran tahay ma aha ilaa maanta aan u dhameystiran madax banaanidii way 60kii iyo maanta de halkun bay taagantay Soomaaliya marka qaabka Soomaaliland uga mid noqotayna waxa weeye conditionskii waxay ahayd Soomaaliland waxay buuxisay sovereign state tahay Soomaaliyana sovereign state bay noqon kari weydo waxa loo adeegsaday article-ka 330 ee sharciga ganacsiga adduunka lagu maamulo marka waxa kaloo aan arrinka ku cadeynaya 2017kii bishii December 13keedii waxa ka dhacay Argentina waxa ka dhacay caasimadda Argentina shirki ganacsiga adduunka waxa ka qayb gashay Soomaaliya observers yani xubin joogta ayaa loogu soo casuumay Soomaaliya maaha member dhameystiran wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo la oranayay Khatra Ahmed waxankaasa waxa wasiirka ganacsiga Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa imika qof kasta oo doonaya inuu arrinka ogaado wuxuu gali karaa WTO wuxuu gali karaa ururka ganacsiga adduunka website-kiisu gali karaa uu ka soo saari karaa wixii la shiri marka qoraalkii minuteski
waxay dalbanaysaa waa 2017 waa December waa sanadkii ina dhaafay bishii ugu dambeysay waxay dalbanaysaa waxay leedahay hana loo ogolaado inaan noqono member maadaama la ogolaaday Afghanistan iyo Liberia waa 2017 marka cidda le Soomaaliya waxay ahayd member maxay dalbanaysaa 2017 hadii member ahayd may membernimadoodii ay dalab cusub ma yimaadeen anuu saan qabo waxay leedahay khatra oo ah wasiirka ganacsiga Soomaaliya December 2017 shirka ka dhacay Buenos Aires ka dhacay caasimadda Argentina waxay leedahay waxaan hore u dalbanay bay leedahay oo ay nagala shaqeysay dawladda Kenya 2015 inaan gudbisano membernimadayadii ururka ganacsiga adduunka marka 2015 bay hore u gudbisteen looma jawaabin markan meesha shirka dhexdiisa ka dhex sheegaysaa waa 17 waxay leedahay imika dalkaygu waa nabad shaqo wanaagsan baanu qabanay geeska Afrika ururadii iqliimka mantiqada geeska Afrika ururadeedii gobolka igadiyo waanu kala shaqeynay barnaamijkii ganacsi marka waxaanu rabnaa inaanu noqono member aan ka noqono WTO marka maba foga waa 2017 December qofka doonaya le Soomaaliya waxay ahayd member ba ka ahayd taas soo saari kara marka taas waa cadeynaysa inaanay member ka ahayn Soomaaliya WTO way ma dalbateen 2017 iyo 15 Soomaaliya ma dalbateen membernimo inay ka mid noqdaan ururka ganacsiga adduunka marka haddii imika qofka saaduu galeemka ururka ganacsiga adduunka way ku jirtaa oo Soomaaliya la raaciyo way ku jirtaa way soo baxaysaa khatar waxay meesha ka tiri waa si fiican laakiin walaalde in reality-ga ground-ka dhulka waxa xaqiiqada taala in haba ahaato dawladda Soomaaliya dawlad maanta taag daran oo dhibaatooyin iyo dagaal iyo ma garanaysa argagixisyo dhibaatooyin badan ku jirta haddana maanta waa dawlad la aqoonsan yahay oo in full membership ka haysata Soomaha United Nations marka arinta membership-ka sida ku heshay iyo sidayna ku helin in trade union-kaas ma noo kala cadeyn kartaa walaado mahadsan waa sax waxa horta arinka Soomaaliya iyo membernimadeeda UN-ka iyo qaabkay Soomaaliya adduunka u dhex cararayso waxa weeye horta Soomaaliya markeen waxa horta iyadoo dawladda Talyaanigu gacanta ku hayso ayaa waxa dhacay dagaalkii labaad ee adduunka waxa la jabiyay dawladda Talyaaniga iyo Germany iyo Japan oo xulafo ah waxa Talyaaniga lagala wareegay oo UN-ku kala wareegay markii la jabiyay dagaalkii labaad ee adduunka lagu jabiyay waxa UN-ku Talyaaniga kala wareegay 4 dal oo Afrikaan ah waxa weeye waa Eritrea waa Libya iyo Soomaaliya waa saddex qiyaasta waa saddex waa Libya iyo Eritrea iyo Soomaaliya saddexdaa dal United Nations uu kala wareegay Talyaaniga waa la jabiyay dawlad shaqeynaysa markaa Talyaanigu mu ahayn waxaana loo qoray enemy states baa la qoray dawladii cadawga baa la qoray Jarmal iyo Japan iyo Talyaani markii laga wareegay UN ku la wareegay saddexdaa dal ay gacanta ku haysay Talyaanigu Libya iyadoo Talyaaniga dagaal bay kula jirtay qaab dawladnimada way u shaqeynaysay waxay United Nations hor joogsadeen oo yiraahdeen annagu nalama gelinayo transition waxaanu nahay waan isku filanahay dal madax banaan baan noqonaynaa bay Libya tiri Libya madax banaanideedii halkii baa lagu siiyay waxa uu maalay qiyaastii 250 baa markaa ahayd marka waa loo ogolaaday dalabkii Libya halkii baa lagu siiyay Eritrea waxay soo jeedisay in Ethiopia ay inta israacaan Ethiopia ay gaarsiiso madax banaani oo hadhow toole markaa ay ka hoos baxaan way oogeen Eritrea Ethiopia markii dambe way inqiraabtay baarlamankii Eritrea la laalushay waxba aduu dawladii Eritrea madax banaanida sugaysay dawladda Ethiopia way ku dul fadhiisatay waxay tiri waxay ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay Eritrea waxaan ognahay in halka Eritrea uu dagaal xoog leh dhex maray Ethiopia iyo Eritrea kuna xoreeyeen dalkoodii 1990 Eritrea dagaalkii waqtiga bilaabmay waxay noqotay Soomaaliya waxa la geliyay transition article-ka lagu geliyay transition-ka waxa 289 article-kaas
waxa la geliyey waxa faystay consulkii transitionshipka waxa 10 sanadood waxa markaa سعيدة ولا على وحبا كاما مقالة إمكا سعيد مقال متشرا ولا عليال مقال متشرا بروجرام كمقال متشرا سعيد سور كيسي وحا وذا تاغن عد كيبا إن مقال متشرا ميانا مقليسان ولا عليال may maqlaysaan walaalayaal may maqlaysaan may maqal ma jiro miyaa laysma maqlayo miyaa aniga codkayga ma maqlaysaan codkayga lama maqlayo miyaa waxa idinka raali gelinayaa farsamadan amba khaladkan farsamada xagga maaragtay technology-ga wuu inaga okay aniga waa lay maqlayaa siciid baa inaga baxay waan u yeedhayaa insha allah mar labaad waxaan rajaynayaa insha allah inuu inagu soo noqon karo raalli ahaada waxaan rajaynayaa inuu waqti gaaban gudihii inoogu soo noqon karo xagga internetkiisa ayay ciladu ka jirtaa xagga internetkiisa ay ciladu ka jirtaa insha allah wuu inagu soo noqon doonaa waxa aan rajaynayaa programka intiina ku jirta ma garanaysaa na dhegaysanaysaa inaad sii sheer garaysaan insha allah waa mahadsantihiin dhammaan aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan sugaynaa waxa weeyaan inuu inagu soo noqdo uun siciid ibrahim jirde inuu inagu soo noqdo inu sugaynaa aad baan idinka raali gelinayaa madax banaanida somaliland haddii aan magaranaysaa sii wadano mawduucaas waxa weeyaan run ahaantii arrin loo baahan yahay dadkeenna in xagga kalsoonida laga dhiso waxa weeyaan somaliland markii wadamada adduunyada la gumaysanayey colonialku maaragtay uu dagaalada iyo dhibaatada badan uu ku hayay kalsooni reer somaliland ka timi oo iyagu ay lahaayeen ayaa xukun ka duwan xukumadii dalalkii gumaysiga ayay magaranaysaa aynu ku jirnay haddaynu reer somaliland nahay waxay ahayd xukunkeenu xukun ah inaynu inagu gudaha iska xukunno cashaa'irkii iyo qabaa'ilkii somaliland deganayd waqtigaasi habkii ayagu ay isu xukumi jireen iyo habkay noloshooda u wadan jireen ee waddankooda u maamulan jireen ayaa magaranaysaa maamulka dalkeenu usii socon jiray maynu ahayn dad qasab maaragtay lagu xukumo oo yacni awood military lagu hayo maynu ahayn waxaynu ahayn protector dal ingiriisku ilaaliyo oo magaranaysaa uu ka mas-uul yahay xagga magaranaysaa inuu dalalka kale ka difaaco administrationkiisa dushana inuu isagu magaranaysaa maamulo marka kalsoonidaasi reer somaliland kalsoonidooda ayay ku xukumeen ninkii caddaaya ingiriiska ahaa in aanay yacni gabadh ingiriisihi ku umulin waddankeenna saan baa lagaga qortay xuquuqda iyo waajibaadka laga rabo dadkaasi ajnabiga ahaa maanta waxaad moodaa kalsoonidaasi reer somaliland in loo baahan yahay in dib loo soo noolaysiiyo inaynu ogaano inaynu nahay dal madax bannaan
maxay ahayday ayaynu u baahannahay in aynu sharciyadda somaliland ay hay-adaha caalamiga ah ku leedahay wixii maanta membership aynu ka haysanana aynu cusboonaysiino amba aynu ilaalino wixii aynu u baahannahay inaynu membership ka noqonnana inaynu codsanno ayaynu u baahannahay simbly dowladda somaliland waxay u baahan tahay inay u dhaqanto inay tahay dal madax bannaan waayo fi lxaqiiqa waa dal madax bannaan wax walba oo arkaanah iyo shuruud ay dowladnimo ku dhismayso waxa weeyaan dal ma garanaysaa shuruudahaas oo dhan soo buuxiyey waxaan la hadlayaa imika oo aan ma garanaysaa xagga telefoonka aan kala hadlayaa Siciid waxaan rajaynayaa inuu uu awoodo inuu ma garanaysaa inugu soo noqdo oo major waxa dhibaato problem weyn inaanay ka haysanin xagga xiriirka internetka naga raali ahaada Siciid assalaamu calaykum walaal ma soo geli kartaa mar labaad programka adoo mahadsan ma soo geli kartaa mar labaad walaal programka haye walaalo soo gal walaal haye walaal sugeynaa marka waxaynu u baahannahay kalsoonidii baa inaga maqan qabkii ahaa inuu reer somaliland shicib ahaan iyo dowlad ahaanba ayaa inaga maqan taasaynu u baahanay inaynu dhisno taasina wuxunbay ka imanaysaa halkan gudaheenna ayay ka imanaysaa qalbigeenna ka imanaysaa niyaddeenna ka imanaysaa innaga yacni haddaynaan isu samaynin kalsoonida haddaynaan samaysanin waxa weeyaan waxba inooma hagaagayaan wax allayaal wax inoo hagaagayaa haba yaraatee ma jirto waxa weeyaan waxa inugu soo noqonaya Siciid anytime waan arkaya imika uu soo dhow yahay Siciid walaalo waan ku faraxsanay alxamdulillah inuu hagaagay aaladiina ku hagaagtay waan ku faraxsanay Siciidow soo dhow walaal mar labaad way qaaliga hada waxoogaa waxa xaggayga farsamadu waan hagaajiyay waxaynu maraynay markaa Soomaaliya maraynay qaabkan ay madax banaanida beenta ay ka sheegayso marka UN-ku xilli buu gooyay 2 December buu gooyay inay qaadanayaan madax banaanida Talyaaniguna uu gaarsiinayo 1 July baa hore loo soo dhigay bay yiraahdaan 1 July haddaba maalintii ay xorriyadda qaateen baa mise waa maalintii midowga waa maalin laba macno oo saaran leh dalalka adduunyada midowga waxaan u naqaanaa dowladuhu waxay kala qaataan 2 maalmood bay xorriyadaha kala qaataan maalina waa maalinta midowga meenaan arkin taariikhdana kuma hayno maantaan xorriyad qaadanay maantaan midowna sameynay maba dhacdo adduunyada in halkaa ku jiro khalad ku jiro sharci horta taas ay noo soo saaraysa waa kow labo dowladda Talyaanigu saan hore u soo sheegay dowladda Talyaanigu ma siinaynin xorriyade amaano UN-ku gacanta u dhiibay buu ahaa waqtina way u gooneed markaa Soomaaliya markii transitionshipka la geliyay 54kii oo reeri calanka Soomaaliya wuxuu ka sii taagnaa UN way ku sii jireen United Nations oo waxay ahayd dal marka horeba UN-ku gacanta ku hayo waxay noqotay inaanay u madax banaaneen inaanay u dhameystirneen madax banaanida dowladnimada Soomaaliya aanay dhameystirneen waxa jira midnimo Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex martay Soomaaliland waxaanu haynaa inay fadhiisteen baarlamankeedii active oo UN-kii waxa yiraahdo sharcigii midnimada inay ansixiyeen baarlamankii Soomaaliland inta waxaad moodaa sidii inuu haddana noqday walaalo caawa programku sidii buu haddana noqday waxaan u malaynayaa xaggaaga ay farsamada ka xun tahay haddana sawirkuu u taagan yahay waxaan filayaa inuu ka dhacayo Siciid mar labaad waxaad moodaa programkani xaraarad gaara inuu leeyahay haddana Siciidow kuma maqalno walaalo iska hagaaji internetka xaggaaga walaal adoo mahadsan hello Siciidow ka dhac walaal haddii aad ku jirtid oo ku soo noqo mar labaad adoo mahadsan walaal waxaan idinka raali gelinayaa
aniga codkayga ma la maqlaa waxaan filayaa aniga codkaygu mar walba uu ku jiraa soo lama maqlo codkayga walaalayaal waxaan filayaa aniga codkayga waa maqlaysaan waa Siciid qofka kolba ka dhacaya bal haddana waxaan samayn doonaa waan eegi doonaa waxa ma garanaysaa way naga baxay iminka waan rajaynaya inuu haddana inagu soo noqdo waxa yaabaha yacni anigu runtii dee waxyaabo badan baa igu cusub oo waxa weeyaan informationkan waa information qaar badan inagu cusub yihiin talyaanigu waxa uu gumaystay buu yidhi wadamo dhowra oo ay ka mid tahay Libya iyo Soomaaliya iyo meesha la yidhaahdo Eritrea marka wadamadii uu gumaysanayay talyaanigu UN-ta ayaa la wareegtay oo ay ka mid ahayd Soomaaliya Somaliland madax banaanideedu markii United Nation markii waxaan ka wadaa ay ka baxay Ingiriisku ka baxay ikhtiyaarkeeda ayay Somaliland ku doonatay maaragtay Soomaaliya wuxuu inoo sheegay markaa in taariikhdii Soomaaliya ay qaadatay xorriyadda la soo qadimay oo laga dhigay 1 July isla waqtigaasna ay noqotay maalintii laftigeedii taariikhdaasi taariikhdii ay la midowday Somaliland iyo Soomaaliya ay midoobeen marka halkaasaynu maraynay waxaan rajaynayaa in uu si dhaqsa inoogu soo noqdo Siciid isagoo oo warbixintan runtii xiisaha badan ee taariikhiga ah uu ina siinayo insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu inagu soo noqdo bal waxaan samayn doonaa telefoon baan u diri doonaa haddana waxaan filayaa waama ka mashquulinaya haddaan telefoon u diro inuu soo socdaa laga yaabaa aad baan idinka raali gelinayaa programka intaynu ku jirnay run ahaantii may dhicin dhowr goor inuu qof uu sidan uga dhaco line-ka waxaan idin xasuusinayaa Siciid wuxuu joogaa Somaliland marka waxa laga yaabaa khadku inuu maanta ma garanaysaa uu khadka dheer uu sababtu ay noqotay inuu ma garanaysaa inaga xumaado badana uu inooga soo geli jiray isagoo Somaliland jooga waanu inoo hagaagi jiray khadku laakiin waxaynu sugaynaa insha Allah inuu nagu soo noqdo waxaan akhriyayaa intaasi waxa ma garanaysaa waxa message-yada maaragtay amba commentiyada fariimaha commentiyada ma garanaysaan inoo qoran wuxuu yidhi Soomaaliya ayaad soo faragelisay walaalo Soomaaliya maanu soo faragelinin taariikh baanu ka sheekaynaynay taariikhdu waxay ku saabsanayd madax bannaanida Somaliland iyo ma garanaysaa sharciyadeeda marka waxa weeyaan sababtaasi ayaa Soomaaliya lagu keenay annaga dantayadu ma aha Soomaaliya dantayadu waa Somaliland iyo sharciyadeeda iyo waxa ku habboon iyo siyaasadeeda weeyaan annaga iyo madax bannaanideeda ay taasa annaga dantayada ah taasa ayaanu priority siinaynaa marar badan kayska Somaliland marka laga hadlayo Soomaaliya way soo galaysaa bacdimaaba ay noqdeen laba daloo midoobay oo haddana kala maaragtay midowgii ku kala noqday taasa keenaysa Siciido waan ku soo dhaweynayaa walaalo si fiican baan u saxeeyay baalka wax keenaysa aan waan hagaajiyay waxa weeye horta dhibaato ma laha walaalo haddii aynu tii Somaliland ku noqono walaal inaga horta tan Soomaaliya sharci daradeeda aan iska dhameyn waxa weeye horta Soomaaliya saasaan ku ahayn sovereign state dal madax banaan midna ma aha halka Soomaaliland iyadu ka tahay dal madax banaan marka waxaana cadeen ah waxa weeye maadaama Soomaaliya iyadu maanta markaynu 18 May 1990 markaynu soo noqonay madax banaanideennii waxay Soomaaliya dib u gashay amaanadii UN ku gacanta ugu hayay bay dib u gashay oo taa cidna lama weydiinayo waxayna ku jirtaa maanta ama hala jeclaysto ama hala nacbeeste waxay maanta Soomaaliya ku jirtaa waa transition oo dal jirana ma aha waxaanay aanu leenahay xaggan uga direynaa fariin waxaan leenahay Soomaaliya inta Somaliland madax banaanidaada ha ka dhex doondoonin
UN wax ka yaalaan United Nations oo doona madax banaanidaada oo arinka Somaliland yani ka dhex doondoonay Soomaalidu madax banaanidoodii intaasan ka baxayna Soomaaliya iyo sharci daradeeda iyo inaanay wax jiraba aanay ahayn oo sharci ba wax sharci oo jira aanay ahayn oo wax saxiix kara ama international agreement gali karaba marka taas iyadu waa taa haddaan soo noqono tan Somaliland imika waxa weeye waxa imika inakayna la gudban waxa weeye inaanu ka shaqeysiino qaabkeeni shuruucda Somaliland ay lahayd inaanu doonano dhammaan international organizationska memberska aynu kaga mid nahay international organizationska membernimada Somaliland ay ku lahayd in la doonto oo aan kuma xilna ictiraaf saan hore soo sheegay kuma xilna waxaan ku raadayay in cid inoo kaambeyn garayso laakiin kaliya waxay ku xiran tahay application la qorto oo loo qorto hay'adaha internationalka ah oo la raaciyo sharciyada Somaliland lahayd iyo hay'ad kasta khusaysan sharciyadeedii haddii ganacsiga tahay wasaaradda ganacsiga shuruucdeedii waxeedii waa in la raaciyo oo loo gudbisto haddii tahay isgaarsiinta waa la mid haddii tahay hawada waa la mid marka Somaliland yo hawsheeda la gelaya waa taas waa wax sahlan weeyaan wax maaha aad u adag oo la fahmi kari waaye maaha marka walaal wada hadalladan tusaale matalan ba wada hadalladan Somaliland iyo Soomaaliya ay ka sameeyaan amba wada shaqayntan dambe aynu maqalno lagu ku saabsan hawada taas marka bacdamaaba ayna isugu jirin hawo ya sidaan hadalkaaga ka dhadhansaday sidee baa loo maareyn karaa arrinta markaasi ma moodaa markaa dee labada wasaaradoodba siday u shaqaynayaan markaa inuu wax badan ka khalad yahay horta waa khalad oo waxay khalad ku tahay waan iyan kuu sheegay kule sharci isku keenay inakii Soomaaliya maba jiro marka horeba oo 1960kii dee sharciba ma imanba laba dawladood iyo sharci loo midoobay ma jiro meesha amaanayo aan gacanta ku hayo dawlad madax bannaan Somaliland ah baa isku yimid marka horta hawo ma wada yeelan karaan waa kow labo markii maxaan ku raadayay Somaliland ay noqotay hawadeedii waxa jiray mar uu hadlay ninka ka waystay xafiiska Nairobi fadhiya wuxuu Somaliland xaq u leedahay haddii tira hawadeedii baan maamulanaya cid koor joogsan kartaa ma jirto marka inaka waxay talaabooyinka la qaaday ee xukuumadeenu qaaday waxa weeye horta marka hore Soomaaliya wax miskiin keen jireen inta la isweydiiyay horta muhiima seen wax u kala qaybsanade sharci kasta marka la eego iyo si kasta marka loo eego wax Soomaali iskaga keen jiro oo in xiriirinaya ma jiro marka inaka waxayna la gudboon maanta ECAO waxay diyaar u tahay in Somaliland iyadu hawadeedii ay maamulato oo ay la soo wareegto barnaamijkeedii hawo oo ay airportkeedii qalabkii la dhigay standardka airportkii international in laga dhigo airportkeeni ayba horta meesha taale maba taalo Soomaali baan ku kala baxayna hawo ninka Soomaali baan hawo ku kala baxayna aan wax qabanin ummadda ma jira habaabinaya oo beenaala ah waayo waxba naga ma dhaxayaan Soomaaliya waayo walaal iminka waxa jirta kelmado amba terminolojiyo gaar ah oo saxaafadeenu aad u isticmaasho in safiirka in UN-ta u jooga Somaliland iyo Soomaaliya in matalan ba qunsulka yani wadan hebel u jooga Somaliland iyo Soomaaliya hawada Somaliland iyo Soomaaliya waxaad moodaa marar badan inay in sida wax leenoogu sheega ay tahay in labada dal jaarka ah wax badani wali isugu jiraan arrinta walaal maxaad naga oran kartaa horta arrintaas waxa weeye waa farsamo xumo ka jirta ama saxaafadeena ha noqoto ama siyaasadda xaggeena ha noqoto waa farsamo xumo jirta weeyaan صح waxa jira xafiiska UN-ka Soomaaliya wuxuu khaas u yahay Soomaaliya imika marmar wuxuu soo saaray UN-ku waxaanu ilaalinaynaa bay yiraahdaan hadeegada waxaanu ilaalinaynaa midnimada iyo madax banaanida iyo dhulka Soomaaliya bay yiraahdaan moogta oo shirarka UN-ka iyo igadiyo way ka soo baxdaa annagu waxaanu ilaalinaynaa bay yiraahdaan midnimada madax banaanida siyaasadda iyo dhulka Soomaalida ayay yiraahdaan kelmadda Soomaaliya marka la isticmaalayo Somaliland ma khusayso
soomaaliya haddaad maqashid waxa way ku eg tahay waxa weeye waa xadkeedu waa garowe waa koonfurta soomaaliya waxayna khuseeyo somaliland khuseeya maba ahaba marka inaan inaku laabta kusoo qaadano waa khaladaadka jira weeyaane iyo fahan la'aanta jirta ee siyaasaddeena ka dhex jirta iyo saxaafadda somaliland ka dhex jirta waayo soomaali waxba mushtari kuma nihin wixii safiirka soomaaliyana wuxuu gaar u yahay soomaaliya somaliland iyo soomaaliya waxa la yidhaha maba jirto anu ma garanayo halkay ka keeneen safiirkii somaliland iyo soomaaliya meelay ku qoranto iyo sharciga ku qoran tahay midna ma jirto waxa jira waxa la yidhaha soomaaliya waxay u gaar tahay soomaaliyada koonfurta somaliland shaqo kuma laha marka waxyaabahaas waa waxyaaba aad u khaldan waxaanu leenahay war waxaa ka waantooba oo haddaydan dadka ku qancin karaynin waxay naga dhexeeya mushtaraka ee safiirka soomaaliya uu somaliland ugu imanaya waa maxay dee somaha in layna fahansiiyo innaka halkee baa layskaga kan xilaya soomaaliya ma hadal baa layskaga kan xilaya sharci ma jire dee hadal haddii laleeyahy waa layskaga kan xilaya lixdankiiba khaladkeenu sameyn waxa weeye somaliland iyo soomaaliya hadal bay isku raaceen sharciba ma ahaynba mogti marka waa khaladaadkii lixdankii la galay arrinta ah union actiga in ay isku raaceen somaliland iyo soomaaliya in dad badan baan walaal weli ogeyn in arrintaa haddii aad si fiican oo ma garanaysaa in hufan oo aad noogu sharaxdid walaal way fiicnaan lahayd in union actigii somaliland iyo soomaaliya ay isku raaceen muu ahayn valid amba muu ahayn wax sharciya muu ahayn wax labada dhinacba ay isku raaceen ay wada saxeexeen in arrintaa walaal haddii aad noo yara taataabatid adiga oo mahadsan horta arrinkaa midnimada la sheegayaa saan kuu sheegayo waxa meesha jirtay waxa weeye waxaan dowlad ahayn baa horta soomaaliya dee qaabkii dowladnimo shuruuddii dowladnimo may dhammaystirnayn oo taan ku leeyahay ma saxiixi karto soomaaliya international agreement ayay kow ka tahay laba dal markay isku yimaadaan adduunka shuruucdooda waa la yaqaanaa waa wax adduunka ka caan ah laba dowladood markay isku imanayaan labadaa dowladood isku imanaya heshiis bay gaadhaan sharci bay dhigtaan waxaa loo gudbiyaa sharciga maxkamadda caalamiga ah ma imanin sharcigaasiyo waxay u iman weyday horena waanu sheegay waxay u iman weyday soomaaliya ayaan ahayn dal heshiis caalamiya intuu saxeexo maxkamad caalamiya la geyn karaba way dowladda soomaaliya heshiis caalamiya inta gasho maxkamad caalamiya la geyn karaa dee maba jirto markaa maynu qasbaynaa midnimadii soomaaliya saxiixi karaynin ma loo gudbin karo maxkamad caalamiya sharci say ku noqon weyday sharci soomaaliya ayaan sovereign state ahayn oo ahayd ammaano un gacanta ku hayo marka tan un kan anugu aan hayo waxa weeye soomaaliya oo soo raacday somaliland iyadoo ammaano un gacanta ku hayo ah marka dadka waa lagu khaldaa waxay midnima dhacday midnimadaasi may dhicin wax jirana ma ahayn waxaan iminka laba cisho kahor waxaan youtube-ka ka dhegeysanaya cabdillahi congo ilaahay cafar ha siiye kheer ha siiye wuxuu joogaa imaaraadka wuxuu sheegaya markay 61 inqilaabka ay sameeyeen wuxuu leeyahay markii maxkamadiina la geeyay muqdisho la xiray inqilaabka waxa uga yaala dil ninka wax inqilaabo waa dil weeyaan markii maxkamadii la geeyay waxa la inqilaabayeen waa in la helo dowladda inqilaabayeen waxay dowladda Soomaaliland ma inqilaabayeen maya maxay qabtay dowladda Soomaaliya la yiraahdo waxa dowladda Soomaaliya la yiraahdo sharci ahoo aad inqilaabayeen ma jirto kiis lagu xukumo waa la waayay cabdillahi konga ka sheekeynaya afkiisa kaga sheekeynaya youtube-ka ku jirta marka waxa loo waayay nimankii inqilaabka sameeyay sharci lagu xukumo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxaysa waa loo waayay marka 61 baa la waayay sharci lagu xukumay oo inaga dhaxaysa Soomaaliya maanta in taagna 2018 ayaa hawadeeni mushtarak ku noqonayna sharci loo helaya maanta saa loo waayay sharci marka ma iman baa qolada la yiraahdo in African Union ku in wadankeena yimaadeen waxay sameeyeen daraasad bay ku sameeyeen in waxay ka soo saareen report ay ka mid tahay active union kaasi inuu kolka horeba una invalid u ahaayo de aanu ahayn wax shaqaynaya in maxay tahay sababta madaxdeena uga faa'iideysan waayeene mar walba la inoogu mashquuliyo ictiraaf baa la raadinayaa haddii aynaan ictiraafka u baahnayn oo aynu nahayba dowlad madax bannaan horta taa midowga Afrika waxa jira
tu ay imika ay qoreen sharci yaqaano midowga Afrika ah waxay kula hadlayaan UN-ka waxay leeyihiin United Nations-ka waxaad khaladeen arrintii Soomaaliland iyo Soomaaliya yani khaladka waxay saarayaan UN-ka waxay leeyihiin United Nations-ka resolution ka soo baxay aadan cadde oo professional ah madaxweyne ku meel gaar ah go'aanka uu yiri member baan kaga mid noqday UN-ka waxay leeyihiin ma khuseeyo Somaliland maadaama aanu khuseen bileen Somaliland waxay taagantay bileen marka xuduudeedii mustacmaradii iyo dawladnimadeedii xadkeedii bay taagan tahay marka waxay leeyihiin UN-ka oo iyagoo hadda waa African Union-kii moogtahay waa kuwii looyarada qoreen waxay leeyihiin United Nations-ku ha ka daayo israacitaankan uu israacinayo Somaliland iyo Soomaaliya waa laba aan shaqo isku lahayn marka waa iyakuwa sidaa lihi walaal waxa weeye waa lawyerskii waa niman looyaro oo midowga Afrika kamid ah ka qoray sharciyada colonial borderska ayaa sharciyadeeda wax badan laga qoray marka waa qayb kamid ah colonial borderska sharciyadeedii waxyaabo laga qoray oo ay Somaliland ku jirto oo ay leeyihiin Somaliland waxay xaq u leedahay sidii colonial borderski uu ahaa inay ku ekaato oo aanay sharciyadeedii iyo xuduudeedii waa sideedii bay waan ku ixtiraameynaa marka waxay leeyihiin UN-ku ha joojiyo Soomaaliya midan ah uu leeyahay moogta maadaama aan wax sharci jirin bay leeyihiin oo isku keenaya Somaliland iyo Soomaaliya marka iskaba daa in yani qoraalka ay ka soo qoreen kuwa midowga Afrika xuduudaha ka hadlaya qaybta Somaliland markay kaga sheekeynayaan waxay soo qaadanayaan in aan UN-ku aanu barnaamijkiisa uu ku wado midnimo Soomaaliya in aan waxba ka jirin oo wax kama jiraan tahay oo Soomaaliya gaarkeeda ay tahay Somaliland gaarkeeda ay tahay marka madaxdeenu wali may u dhaqaaqin qaab sharci inay ku cadeysato madaxbannaanida Somaliland maalintii madaxdeenu u dhaqaaqdo qaab sharci madaxbannaanida Somaliland uma leen maayo inay nagu qaadanayso 7 cisho inaan ku dhameystirno waxa la yiraahdo wax carqaladaha ku xeeran Somaliland oo dhan laakiin madaxdeenu waxay u dhaqaaqday wada hadal wax la yiraahdo Somaliland wada hadal la galeena wada hadal sharci maaha markaynu eegno marka xukuumadeena waxyaabaha ka dhiman ee mar walba ku boorina wax weeye qaabkii dawladnimo ee Somaliland ee sharciyadeed ha u maraan madaxdeenu wax ka horjeedsanay ma laha African Union-ka waxay ka noqon karaan member waxay ka mid noqon karaan jaamacadda Carabta waxay ka mid noqon karaan UN-ka wax horjeedsan kara ma laha tiyo waliba halkan ninka sharci yaqaanka qolo Mareykan oo sharci yaqaan oo 93 ka soo saaray sharci Somaliland waxay leeyihiin dawladnimada Somaliland waxa xoog siinaya oo ka dhigaya strong yani ka dhigay qawi inay ahaato dal jiro ictiraaf leh waxay leeyihiin colonial borderska ay midowga Afrika ay ku darsadeen heshiiskoodii oo waxyaabaha siinaya Somaliland siinaya dawladnimadeeda xoog siinaya bay leeyihiin moogta marka taa midowga Afrika waaba ka kooba inaynu Soomaaliya waxba iska keen jirin waa ka weeyaan waxa aad u muhiim ah xukuumadeena inay kor u qaado waa muhiim in lagu celceliyo kor loo qaadana waa muhiim moogta marka Afrika iyadu midowga Afrika hadii la guda galo loo tago Britwale looyaradoodii baa soo qoraya moogta in la ixtiraamo shuruucdii la kala xuduudii mustacmaradii in United Nations-ku ay ka daayaan Soomaaliya ee Somaliland ay hoosta ka xidheen in UN-ku ka daayo in UN-ku ka qaado fara maadaama Somaliland iyo Soomaaliya wax xuduudaha u dhaxaysa aan jirin marka taas waa wax cad oo kaleer ah wali qaabkii aynu uga shaqaysiinayno doonanayn hawsheedii meedaan gelin walaal in waxa berigii dhaweyto dhacay heshiis ku saabsan inay Somaliland ka kiraysay dekada Berbera in shirkadda Imaaraatiga ah ee DP World la yiraahdo in taa waxa ku xigtay heshiiskaas markii dawladda Soomaaliya ay ka war heshay inay u dacwootay meelo ay ka mid tahay United Nations-ka in ururka jaamacadda Carabta in marka in meelaha ay ka dacweysay bacdamaaba United Nations-ku ay ka mid ahayd waxa ay dhacday United Nations-ku inay diiday inay arrintaasi ka hawl gasho oo ay jawaabteedu ahayd in khilaafka xalkiisa ay u taalo labada dawladood ee isdacweynaya marka walaal arrintaasi
miyay ku sal leedahay union actigii somaliland iyo soomaaliya u dhexeeyey amba sharciyadda yani labadaa dal ma sal bay ku leedahay arrin yani bacdamaaba soomaaliya ay tahay waddan maanta dee membership kale united nationka general assemblygiisa yimaada miyayna ahayn marka arrintaasi miyay ku sal leedahay sharciyadda aad walaal noo sharaxday adoo mahadsan horta waa runo waxaa jira UN-ku marka dawladda dacwad u gudbiso ilan wuxuu ka shaqeeyaa UN-ku waa nabadda adduunyada marka dawladda haddii cabasho gudbiso United Nationku markaaba guddi buu saaraa degdeg baa markaaba arrinkaa loo xaliyaa marka Soomaaliya waxay gudbisay yani membarnimada la sheegaya horta waa sidan Falastiin oo kale Soomaaliya General Assembly-ga waa ka mid shir kasta oo sanadlaha way ka qayb galaan Falastiin waa la mid Maxamuud Cabbaas General Assembly-ga shirka sanadlaha bisha sagaalaad Maxamuud Cabbaas khudbadiisu way ku jirtaa uu ka khudbadeeyaa madaxweynaha Soomaaliya kastoo yimaadana uu ka khudbadeeyaa marka wax farq horta u dhaxeeya Falastiin iyo Soomaaliya horta ma jirto marka loo eego UN-ka gudihiisa United Nations gudihiisa dadkeen waxay haystaan dawlad sharciyad ku leh UN-ka gudaheeda Soomaaliya sharciyad kuma laha UN-ka gudaheeda waa sida Falastiin oo kale waliba waxa la qaatay Maxamuud Cabbaas oo markuu hadlay yiraahdaa hana la siiyo madax banaanideedii kuwa madaxa Soomaalidu markay hadlayaan wax isku haystaan inay madax banaan yihiin kuma badaraan inta marka horta waa sida Falastiin oo kale arrinka Soomaaliya ayuu ka yahay UN-ka gudihiisa dacwadii gudbiyeen ay lahaayeen imaaraad baan ka gudbinay horta dacwadu ma jirin ninkii joogay sidan Falastiin baa wax ku leedahay safiirka Soomaaliya ku leedahay meesha jooga ayaa qoray oo yiri waxa lagu soo xadgudbay dhulkii Soomaaliya madax banaanidii Soomaaliya lagu soo xadgudbay marka looma jawaabin ba yani fadhigii gudihiisii wax jawaab laga ma siinin maxaan ku leeyahay dacwadiisina waxay ahayd waxaan jirin baa laga soo qaaday horta sidii ay u dhacday wax weeyaan moogtahay mar dambe oo laba cisho ka soo wareegtay qiyaastii ayaa afayeenka security councilka ayaa nin saxafiyi uu weydiiyay oo yiri arrinka ay soo gudbisay Soomaaliya maxay UN-ku ka yeelay moogtahay UN-ku jawaab yani dacwadda gudbisay Soomaaliya loogama jawaabin UN-ka gudaheeda halka waxaan doonayaa in dadku ay si fiican u fahmaan dacwadda UN-ka gudihiisa ay Soomaaliya ka gudbisay loogama jawaabin waayo dawlad member nimo sharci ah ku fadhida maaha sharcigeedii madax banaani ma jirto marka waxba lagama soo qaadin dartiina hadduu ahaan lahaa guddi baa la saar lahaa fadhigana iyadoo fadhiga laga kicin ayaa laga jawaabi lahaa marka lagama jawaabin laba cisho markii ka soo wareegtay ayaa nin saxafiyi afayeenka security councilka isagoo ka warbixinaya security councilka shirarkoodii ayaa nin saxafiyi su'aasha weydiiyay ninkii afayeenka ahaa security councilka ninka wuxuu ugu jawaabay arrinkaas wuxuu yaalaa imaaraadka Soomaaliya moogtahay yani jawaabtaasi waxay ku tusaysaa cadeynaysaa in Soomaaliya wax sharciyad aanay ahayn dacwadna gudbin kareenin member UN-ka awood kulana aanay ahayn waayo laba cisho ka bacdi afayeenka security councilku oo waliba nin saxafi wadi xitaa warbixinta lagu soo daran xitaa oo saaxta lagu jawaabin nin saxafi wadiye moogtahay marka dadkeena waxa ka qaldan waxay u haystaan haddii Soomaaliya UN-ka member ka tahay waxay u haystaan inay tahay dawlad sharciyad leh oo awood leh oo UN-ka wax ka ah ma aha waa isku mid Maxamuud Cabbaas shirka midowga Afrika uu tagaa shirka jaamacadda Carabta uu tagaa shirka UN-kana uu tagaa General Assembly-ga dawladda Soomaaliya waa la mid ka UN-ka way tagaan ka Afrikana way tagaan jaamacadda Carabtana way tagaan marka wax macno ay sameynayso ururada ay tagaan ama inay yihiin dawlad sharci leh in loo arko horta maaha marka waxa loogu jawaab waayo UN kugu jawaab waayo waxa weeye maaha dawlad xubinnimo dhameystiran leh oo sharciyadeedu dhameystiran tahay hore waxaan imika u soo sheegnay caawa in looga saaray ururka ganacsiga adduunka inaanay madax banaanida iyo sharciyadeeda dawladda aanay dhammaystirnayn oo loo cuskaday artikelkaas 330 marka United Nations gudihiisana waa sidoo kale marka dacwada gudbin karto UN u gudbin kartaa ma jirto waxaan intaa kugu darayaa imika dawladda Soomaaliya dastuurka ay leedahay maanta dawladda Soomaaliya ma samaysan dastuurka waxa uu sameeyay United Nations
Nairobi baa lagu sameeyey UN-ka u sameeyey marka UN-ku uu sameeyay dastuur article-ka 75 ee charter-ka UN-ka wuxuu dhigayaa dawladda UN-ku gacanta ku hayo waxyaabaha looga baahan yahay in UN-ku u sameeyo waxa kow ka ah dastuurka in UN-ku u sameeyo kow ka ah halkan doonayaan inaan dadka ka fahansiiyo inaan Soomaaliya xor ahayn United Nations-ka ayaa dastuurka ay maanta Soomaaliya leedahay UN-ka u sameeyey ninkii bilaabay waxa Augustine Mahiga ninkii loo oran jiray markii dambena waxa kala wareegay ninkii Keating marka haddii dal madax bannaan yihiin oo awood ku leeyihiin UN-ka dastuur UN-ku uma sameeyeen iyaga sameeysan lahaa xagga Soomaaliland iyadu dastuurkeeda iyadu ay xor u ahayd oo iyadu Soomaaliland gacanteeda ku sameysatay dastuurka aftideedina gacanteeda ay ku sameysatay dastuurka marka halka laga eego article 75 ee charter-ka UN-ka wuxuu dhigayaa amaanada UN-ku gacanta ku hayo inta laga gaarsiinayo dawladnimo dastuurka waxa uu sameeyay UN-ka ayaa uu sameeyay ku taala moogta inta walaal haddaynu ku darno in Somaliland shuruudda dawladnimada amba dawladda madaxa bannaan shuruudeedu in haddaynu af Soomaali ku sheegno inay tahay in shicib in sugan iyo xuduud sugan iyo dawlad shaqaynaysa oo yani sharci daadejintii leh oo dawladdii iyo magaranaysaa hay-adihii kale ee dawladeed ee ka hooseeyay xukuumaddaba ay wada leedahay iyo in ay haysato awood ay xidhiidhiyo la yeelan karto iyo heshiisyaba dawladaha caalamka ee kale run ahaantii dee shuruuddaasi intaasi Somaliland way kasoo wada baxday waayo shicibka reer Somaliland waa shicib la yaqaano oo magaranaysaa in sifadihiisa iyo tilmaamihiisa iyo xuduudaha dhulkiisaba waa shicib la yaqaan waa shicib xadidan oo magaranaysaa dhulkiisa iyo xuduudda Somaliland ay leedahayna waa xuduuddii British Protectorkii Somaliland xuduuddaasina waa xuduud caalami ah oo la yaqaan government-ka amba xukuumadduna dee waa xukuumadda aynu ka mid nahay amba aynu nahayba dawladda Afrika yani dawlado yar baaba malaha inala weheliye hadday jiraanba dee Afrika dawlad run ahaantii doorashadaasi dimuqraadiga ku doorta madaxdooda weliba dee madaxdooduna marka waqtigu u dhammaado sida sharafta laheed aragtay ay kaga baxaan guriga maaragtay iyo kursiga madaxtooyadaba iyo weliba dee Somaliland inay leedahay awood ay shuruudaha maaragtay yani amba heshiisyada caalamiga ay ku geli karto intaasi laftigeedu soo ma aha shuruudii xukuumad amba dawlad madax bannaan xukuumadii aan odhanay dawlad madax bannaan laga rabay intaasaad ku sii dartay adiguna sharciyadii kale ee hadday tahay United Nations-ka iyo hay-adaha hoos yimaadaba sharciyadihii Somaliland ay ka lahayd ay xorowka u ahayd magaranaysaa hawadeeda iyo warisgaarsiinteeda iyo biyaheeda iyo waxyaabaha kale ee aad noo soo magacowday horta dawlad marka la yiraahdo inay madax bannaan tahay kale waxa lagu garan karaa hal shay sidaa sheegaysid waa run xuduuda inay leedahay inay dad ku nool yihiin inay gaar tahay taas waxa weeye marka loo eegayo dal loo eegayo inay noqon karaan dawlad inaku maanta dawlad cusub oo shuruudaha loo eegayo ma nihiin oo soo dhaafnay oo maanta new state ma Somaliland dal cusub oo adduunka ku soo beeray horta ma Somaliland waa dal 60kii sharciyadii iyo dawladnimadii oo caalamka ka mid noqday 60kii marka qodobada sheegaysid dadkeena imika ayaa sidaas ay u haystaan waxay yiraahdaan waynu buuxinay shuruudihii dawladnimo kelmadaas waa khalad anigu saan qabo sharci ahaan marka leenahay waynu buuxinay shuruudihii dawladnimo deemaniin dawlad cusub oo Somaliland ma dawlad cusub oo dhalatay 19 May haddii 19 dhalan lahayn 18 May ay oran lahayn maanta waynu buuxinay shuruudihii inooga baahnaa laakiin Somaliland waxa weeye waa dawlad ka mid noqotay caalamka 26 June ayay ka mid noqotay caalamka way u rajiskareysan tahay waxaana ka mid tahay caalamka marka shuruudo cusub ay buuxinaysaa maanta ma yaalaan waxa maanta yaala waa hal shay munay shay qura ayaa maanta Somaliland hor yaala
shuruudo dowladnimo buuxinaysaa ma hor yaalaan waynu inaku dal cusub imka dhashay manihiina waxaanu nahay dal jiray oo 66 jir xorriyadiisa qaatay waxa kaliya hor yaala waxa weeye wax Soomaaliland waxa kaliya hor yaala waxa weeye sidee baynu uga shaqaysiinaa sharciyadeeni 60kii sidee baynu uga shaqaysiinaa inaan la soo noqono wixii dowladnimo inaga maqnaa UN-ka sida hawadii iskaarsiintii badii yani qaabkan la soo noqonayna inaan ka shaqaysiino iyo qaabkan caalamka kaga mid noqonayna shuruucda inaan ka shaqaysiino mooyaane horta Soomaaliland wax kale oo maanta hor yaala aniga aragtideeda iyo markaan in badan waxaan ku dhex jirnay wax Soomaaliland maanta yani caqabado hor taala oo ka ahayn in iyadu shaqadeedii qabsato mooyaan horta ma jirto waxa loo baahan Soomaaliland wixii ka maqnaana inay doonato wixii dowladnimadeedii sharciyadeedii nidaamkeedii gudahana inay samaysto xoojisato marka imika waxaan ku najaxnay hal shay waxaan ku najaxnay inaan xuduudaheennii Soomaaliland sugno ee dhulka waan ku najaxnay taa waa kow labo waxaan ku najaxnay inaynu baarlamaan sameeyno guurti sameeyno lacag inaynu sameysano calan inaynu sameysano baasaboorkeeni waan la soo noqonay lacagteeni waan la soo noqonay okay maxay inaga dhiman waxay naga dhiman saddex shay oo loo baahan yahay in la soo noqono saddex shay waxa kamid ah waxa weeye waa maamulkii badda waa hay'adii badda ee UN-ka waa kow labo waa hawadii waxa weeye tii diyaaradaha ee hawada saddex waxa weeye iskaarsiintii saddexdaas shay waa saddexda shay ee maanta ilaha dhaqaalaha Soomaaliland kor u kicin lahaa laakiin gacanta UN-ka ku maqan ay fududahayna sida looga soo noqonayaayo maadaama aad ahayd dal horena u jiray sharcina lahaa ay tahay un sharcigaagii hore inaad inta dib ugu noqotid aad cusboonaysiisidun marka maanta Soomaaliland waxa la gudboon inay cusboonaysiisato sharciyadeedii iska taalay ee kaga mid noqon lahayd adduunka marka hal cusboonaysiin baan leenahay sharciyadeedii marka Soomaaliland waxay leedahay marka ibaka waxaan soo saarnay tii sharciyadii iskaarsiinta waxa ugu taala Soomaaliland maalin aliyaala maalinta ay wixii la noqoto inay iskaarsiinteedii iyo kursigeedii halkeedii ay yihiin ya waa sharcigii iskaarsiinta wuxuu soo baxay 1972 ya oo waxa laga dooday sharciyada adduunka laga dooday marka 1959 Geneva Convention ayaa wuxuu dhigayaa haddii dawladii waxeeda la noqonayso qaabka loo noqonayso marka xataa Soomaaliland hadda waa 72 markan qoraalka la sameeyay waxa la leeyahay Soomaaliland haddii la noqonayso iskaarsiinteedii ama mawjadaheedii hirarkeedii mawjadaha haddii la noqonayso waxay loo cuskanayaa baa leeyahay 1959 conventionka Geneva Conventionkaas oo dhigaya qaabka aad mahadsantay walaal waxaad nooga dhacdaayuun hawadan ay Soomaaliya la soo wareegtay hawada Soomaaliland iyo Soomaaliyadan la leeyahay way isku jirtaaye Soomaaliya la leeyahay way xukuntaa imika Muqdisho lagu soo wareejiyay ka walaal wax yar ma nooga taaban kartaa adoo mahadsan intaan ka ogahay horta hawada Soomaaliland intaan ka ogahay horta wixii miiriyaha laga sii daayaa waa gaar laakiin maanta waxaan anigu ogahay hawo la ilaa Soomaaliya haddii la ilaa Soomaaliya Soomaaliland shaqo kuma laha iyo inaan ka caroon haddii la ilaa Soomaaliya hawadeedii lagu wareejiyay oo waxay Soomaaliya lahayd Soomaaliland kuma jirto caawa haddaynu doonana hawadeeni waan soo qaadanayna marka dadkeena waa la khalkhaliyaa Soomaaliya waxa lagu wareejiyay baasay dadkeenu waasaan inaanu ka mid nahay Soomaaliya wata hawadii la wareegay koonaya waxa waasay inaanu ka mid nahay imika waxa laga yaabaa ekaaw haddaynu caawa dacweyno inay naga gar hesho waxaan ku oranaysaa anagu waxaan wareejinay hawo Soomaaliya Soomaaliland waxeedu waa kan maxaad nagu haysataan oo wax laga gar heli karo marka hawo la wareejiyay Soomaaliland leedahay horta ma jirto waxa la wareejiyay waxay Soomaaliyadii koonfurtu lahayd yani dadku waa inay saa u gartaan waa in laga daayo jahwareerkii asqada dadka loo qaybinayo iyo khalkhalka dadka la khalkhalinayo waayo ay ka wax ku oran kartaa anu hawo aan leedahay ku wareejiyay Soomaaliya de ma jirtay anu Soomaaliya wixii aan wareejiyay warno Soomaaliya la yiraahdaa de Soomaaliya inaga waxa la yiraahdaa babiga Soomaaliland waxayna la gudbaan inaynu doonano un hawadeeni laakiin hawo ay Soomaaliland leedahay oo la wareejiyay ma jirto to kale waxa doonaya inaan dadka u iftiimiyo
oo madaxdeenu ay ku celceliyaan oo aad u khaldan waxay yiraahdaan Turkiga waxa lagu soo heshiiyay yiraahdaan in hawada la qaybsado horta kelmaddaasi waa kelmad khaldan waxna kama jiraan Turkiga kama dhicin Soomaaliland iyo Soomaaliya hawo ku heshiisay waxaanu haynaa wixii Turkiga lagu soo gaaray ka soo baxay Turkiga dee Hargeysa lagu keeno iyadoo qoraalaan haynaa hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya maalintii laga hadlayay wixii la isla gaaray ka soo baxay wuxuu ahaa communique heshiis mu ahayn kelmadda af Soomaaliya heshiis waa agreement halka khaladka hadeeda waa khalad sharciyeed moogtahay war waxa Turkiga lagu gaaray ee Soomaaliland iyo Soomaaliya wada gaareen wuxuu ahaa waxa la communique waxa weeye af Carabi markay noqoto waa bayaan agreement maaha af Carabi ittifaaqiyadna maaha af Soomaaliya heshiis ma noqonayso laakiin madaxdan waxa tiraa heshiiskii lagu gaaray Turkiga ee hawada in la qaybsado ahayd kelmaddaas waxba kama jiraan heshiis mu ahayn wuxuu ahaa communique macnaheedu waxa weeye waa bayaan mushtarak inta la wada hadlay la soo saaray bayaan mushtarak ah oo loogu soo saaray hawadii marka taasi heshiis maaha yaa waxa imka raacaan dadkeenu waxa raacaan wixii Turkiga lagu soo gaaray ayaa buu dhigay sidana waxa lagu oranayaa Turkiga wixii lagu gaaray communique buu ahaa ma ahayn heshiis markaas waxa garoobay madax Soomaaliya halka ka keentay heshiis baan la gaarnay Soomaaliya hawadaan ku qaybsanayno meesha ku galeen aanu ma garanayo laakiin wixii Turkiga lagu galay loo soo gudbiyo wuxuu ahaa communique heshiis ma hadde waa bayaan weeyaan marka taa in la fahmaan ayaa iyaduna aad u muhiim ah oo ma aha wax sharciya communique-gu ani imka caawa wala hadalkeena wixii go'aan ka soo baxa wuxuu noqon karaa munay communique ma ittifaaqiyad meelan kala saxaxande iid ba comment noo soo qoray wuxuu yidhi waxaan kula talinayaa dhammaan Somalilandarka inay akhriyaan The Somali Republic buugga la yiraahdo muxuu yidhi an experiment in legal integration written by Paulo Contini in 1968 buuggaasi oo lasoo publish gareeyay isla sanadkaas maya 1968 buu muxuu yidhi oo lasoo publish gareeyay 1969 way fiicnaan lahayd iidow inaad nala soo gashada programka ma garanaysaa aad buuggaar noo recommend garaysay aad noo recommend garaysay aad noo yara taataabatid laakiin insha allah programka kale ee aad nala soo geli doontid ayaad insha allah noo sharxi doontaa sababta aad ma garanaysaa aad noogu recommend garaysay walaal Siciidow warbixin aad u qiimo badan ayaad caawana siisay oo runtii aad u wanaagsan oo runtii na farxad gelinaysa waayo haddaynu nahay reer Somaliland wax badan baa Soomaaliya inagaga xidhan wax badan baynu weli wadaagnaa hawadii Somaliland iyo Soomaaliya safiir hebel amba ma garanaysaa UN-ta ninkii u fadhiyay Somaliland iyo Soomaaliya waxyaabo badan oo noocaas aynu runtii maqalnaa waxa fiican inaynu saxno ma garanaysaa dadkeenana aynan niyadda ka jibinin Somaliland madax banaanideedu way caddahay Somaliland Ingiriiska goortu ka baxay iyo habku kaga baxay iyo agreementku kaga baxay iyo heshiisku kaga baxay way caddahay Somaliland madax banaanideedii inayna ka tanaasulin oo ayna si sharciya ula midoobin Soomaaliya oo Union Act-gii amba heshiiskii midnimadii Somaliland iyo Soomaaliya midaynaysay inaanu ahayn wax shaqaynayo isla Union Act labadii dhinacba wada saxeexayn inaanu jirinna waynu ognahay taas macnaheedu waxa weeyaan Somaliland mabayba ka tanaasulin madax banaanideeda waxay Soomaaliya ku raacday ogolaanshiyaha shicibka Somaliland oo runtii waqtiga aad ugu xiisoonayay midnimo Soomaaliyeed dareenkaas oo ku jiray dalal badan oo waqtigaasi gumaysiga inay midoobaan oo kamid ahay dalalka Carabta oo marka ay ku riyoonayeen Carabtuba inay sameeyaan alwixda alcarabiya wax la oran jiray oo aynu ogeyn Jamaal Cabdinaasir iyo Malik Faisal inay madax ka ahaayeen fikirkaasi marka waxa weeyaan inagana taas bay nahaysay bacdamaaba aynaan si sharciya ula midoobin Soomaaliya taa micnaheedu waxa weeyaan sharci
madax bannaanidii ingiriiska aynu ka qaadanay ayay 1960gii 26 juun ayaa weli valid ah taasaynu haysanaa ma u baahnin markaas Siciidow soo maaha wax aqoonsiyal inaynu raadino iyo wax madax bannaanina inaynu raadino ee waxa weeyaan inaynu inagu hay'adaha caalamka ah ee ay mid ka yihiin maaragtay amba ay member ka yihiin dalalka caalamkuba ee madaxa bannaan inaynu inaguna membershipkooda raadino intaasaan ka fahmay hadalkaaga caawa waxaan filayaa dhammaan walaalaha inagula jira ma garanaysaa khadka inay inta aan fahmay oo kale hadayna ka badin maasha allah hadalka sidaan u fahmay walaalo sax ma yahay ma waxba inaga maqan waxa weey runtaa waa sax weeyaan waxaan ku soo ururinaynaa waxa weey Somaliland iyo Soomaaliya waxa la yiraahdo wax ka dhaxeeya ma jiro ama hawa noqoto ama bad ha noqoto ama isgaarsiin ha noqoto safiirka imaanaya Somaliland iyo Soomaaliya waa khalad sharciyan waa khalad maadaama aanay midnimo sharciiba jirin maxay naga dhaxeen kara Soomaaliya يعني انت هذا سويدي صوما marka horta mid waxa weeye midnimo sharci Siciidow maadaama ayna midnimo sharci jirin midnimo in madaxbannaanidii sharciga ahayd ee Soomaaliya horta iska daayo in waxaan rabaa inaan dadka inala daawanayo inaan arrintaasi ka dhaadhiciyo ayaan rabaa waxaad tidhi بعدما Somaliland iyo Soomaaliya midnimo sharci ayna gelin contract amba heshiis midnimo oo sharci ayna gelin waxa wali shaqeynaya madax bannaanidii Somaliland ay ka qaadatay Ingiriiska therefore uma baahnaba Somaliland inay aqoonsi raadsato dabcan waa sida ha waayo waxa naga dhaxeeyo iyo haweenku mushtarak ku nahay naga dhaxeeyana ma jirto adduunka waxa isku keenay wax ka dhaxeeyay wax weeye markay heshiis sharci jireen wax la kala qorto ayaa dadku ay yiraahdaan aan ku kala baxno wixii aan kala qoranay ma jiro sharci midnimo marka maxaan ku kala baxayna ma wax shaydaan waa halkaagii ma shaydaan ba anu ma garanayay ma jimba cidan maxaa la kala baxaya ama maxaa lagu kala waxa la kala guranaya waa maxay marka ma jirto caawa iyo 60kii soo dhaafnayba wax Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxeeya ma jirto maadaama ay jirin wax Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeya waxa shaqeynaysa dawladnimadii Somaliland ee 1960kii 26 Juun waxa loo baahan yahay inaan u shaqeynin ama inaan u fakirin sidii inakoo dhalanay 1998 May aynu u fakirno qoraalkaasi aad buu yar yahay waxaan jecelahay inaynu in comment-kiisa ayaan soo saaray shaashada qoraalka walaal ma arkaysaa aad buu yar yahay runtii xaggayga aad buu yar yahay qoraalkaasi si fiican uma wada arkayo waliba markaan shaashada soo saaray xuruuftu si yaraatay horta haduu continue yahay ninka uu qoraalka ka sheegaya halkan aan ku hayaa qoraalka uu soo saaray continue waa continue waa Paulo continue buu yiri markii hore aan arkay markaan shaashada soo saaray xuruuftu ay si yaraatay oo hagaagsan yahay id waa qoraalka ugu wanaagsan ee cadeynaya Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay kala hayeen cadeynayeen Soomaaliland dal madax bannaan tahay weeyaan halkan aan ku hayaa ninka continue waxa weeye waa lawyerkii loo soo diray UN-ka uu soo direen United Nations-ku inay ka daba tagaan dawladnimada Soomaaliland iyo midnimada sharci darrada meesha ka dhacday in wax ka soo qoro marka qoraalkiisaas horta inaga filan ba ama UN ha noqoto ama adduunka kale ha noqotee wuxuu ku cadeynayaa ninka continue wuxuu ku cadeynayaa in Soomaaliland tahay dal madax bannaan oo heshiis caalami ah geli karta oo aanay Soomaaliyana ka dhaxli karin dawladnimada Soomaaliland ee leedahay wati habeenkii xalay ma habeen hore aan sheegaynay weeyaan marka wuxuu kaloo cadeynayaa oo uu sheegayaa in aanu jirin oo aanu dhicin sharciyad midowga maadaama ay Soomaaliya ba aanay gebigeeduba dawlad sharci laba aanay ahayn ba oo sharci ba yeelan ba magay dhicin buu leeyahay midnimo sharci marka wuxuu aad ugu nuxnuxsanayaa Soomaaliya waxa la yiraahdo wax ka dhaxeeya inaanay jirin يعني يمكن هذا كان دقيقة كور كله هذه وحن ككاني عنو قرار كونتيني ما كان وح اللي يلا وح كده حي الصومال يعني Mr. Contini explains how the union between us and Somalia is not legal
as the act of union are not ratified. يعني بعد ما بقى act of union كي بعد ما بقى midnimadii Soomaaliya iyo Somaliland أين act of union كاسي أنبا heshiiskaasi una ahayn عقد أنبا heshiis أنبا contract valid بعد ما بقى aanu ahayn in by the parliament of the Somali Republic. يعني waxa weeyaan Soomaaliya barlamaankeedu uma codaynin oo ma garanaysaa muu sharciyeynin heshiiska amba union actiga Somaliland iyo Soomaaliya sababta la ajligeedba wada hadalladu ma aha wax sharciya sidaasaan u fahmay waa sax eg muna markaan wax kala qorana ayaa la isku yimaadaa la wada hadlaa waayo waxba inaga dhaxeeya waxba ma inaan kala qoran waxba bayna isku maxay inaga dhaxeen kara markaa Soomaali ma maxay naga dhaxeen kara Soomaaliya eg continue wuu cadeeyay dhammaan 7 lawyer oo aan hayno qoraaladii sameeyeen oo dhan way cadeeyeen marka waxaan anigu ka cabsi qabaa 60kii waxa dhacay khalad sharci baa dhacay oo xaggeena Soomaaliland ka dhacay maanta inuu kii nagu soo noqdo maaha Soomaaliland waxa weey waa dal madax banaan waa inaynu ka waantowno khaladkii iyo ilduufkii nagu dhacay 60kii inaynu maanta mar labaad nagu soo noqdo waa waaniya dardaaran aanu dirayo shacabka Soomaaliland iyo ragga madaxda u ah talada dalka haya waxa weeye khaladkii 60kii dhacay xagga sharciga ka yimid yaanu maanta mar labaad nagu soo noqonin way maanta aad baan uga cilmi badanahay intii dad aqoon laba ayaa dalka ka buuxa maanta boqolkiiba 60 Soomaaliland hadaan ka badneen waxna way qoraan waxna way akhriyaan way 60kii sala ma ahayn inta wax qoraysay inta wax akhrinaysa way yareen marka maanta qof kasto Somalilandera oo inuu wax qora inuu wax akhriya waxa weeye waxaan intuu baaro inuu ka daba tago oo uu ogaado khaladku halku ka jiro iyo khaladkii 60kii halku ka jiro sharci darra dhacday 60kii khalad sharci baa dhacay 60kii maanta kiinu nagu soo noqdo maaha marka Somaliland iyadu waxeeda iyo dawladnimadeedu saas ku shaqeynaysaa hawadeedu markaan weydiinay nin expert ku ah hawada oo reer Somaliland waxaan ku maxaa looga baahan yahay Somaliland si hawadeedii u kontrolsho moogta wuxuu yiri waa basiid buu yiri haddeenu galabta tagna buu yiri airportka Hargeysa oo aynu qabsano faniyaha waxaanu ogeysiinaynaa caalamka laga bilaabo maanta Somaliland waxay maamulanaysaa hawadeedii waxaanay dharkeedu yahay Hargeysa wallahi wuxuu cid oran karta ma jirto arinkaas ama ma maamulan kartaan ma jirto qawaaniid adduunku wuxuu ku kala shaqeeyaa waa sharciga Somaliland u diiday inay hawadeeda xukuumataa waa keen ma jiro sharciga Somaliland u diiday inay badeedii iyo wixii hormarayay marinkeedii ay la soo wareegto ay xukuumataa waa keen ma jiro sharciga Somaliland u diiday iskaarsiinteedii inay la soo wareegto oo furaheedii 252 furaha 252 Somaliland baa lahayd furaheedii 252 inay la soo wareegto Somaliland maxaa ka hortagay u diidaya waxa wax ka hortagay u diidaya ma jirto Soomaaliya fureedu iyo Eritrea 291 buu ahaa Soomaaliyana waa 292 Somaliland waa 252 iyada iska leh Somaliland furahan maanta magaca Soomaaliya iska qoran waa basiid marka loo gudbisto qoraalka loo gudbisto hay'adda qaabilsan iskaarsiinta waxa la yiraahdo wax sharciyada inaga hor joogtaa de ma jirto wayna soo wareegi karnaa miftaaxin 252 waayo ganacsiga adduunku marka adduunka ganacsi ku shaqeynayo ko waxa ka code country inuu yeesho dalka heshiiska ganacsi galaya annaguna waxaan hore soo sheegnay inay Soomaaliland member ka tahay ururkii ganacsiga adduunka membarnimada ururka ganacsiga adduunka ee Soomaaliland memberka ka tahay waxay kaga mid tahay code countrygeeda waa 252 markaad member ka noqonaysid WTO waa inaad haysatid code country haddii kale member ma noqon kartid munaay intaas waa in muhiim ah doonayaan inaan ku daro moogto in buuggii baa laynoo recommend garaynayaa dhammaan walaalaha reer Somaliland si ay u fahantaan sharciyadda in aqoon-yahan Saciid Ibrahim Jirde wuxuu ka hadlayo in waxa aad uu inoogu magaranaysa inagula talinaya walaalkeen Iid Xasan aw Muuse in aynu akhrino buuggaasi in buugga magaciisa ayaan shaashada imika saaran in maxaa la yiraahdaa Somali Republic
an experiment in legal integration baan filaya inay tahay written by Paolo Contini in 1968 yeah in buuggaasi hadday la akhriyo in arrimahaas ku saabsan madaxbannaanida Somaliland iyo sharci darrada midnimada Somaliland iyo Soomaaliya aad baynu u fahmi doonaa insha Allah aniguna buuggan waan raadinayaa insha Allah in aad baad u mahadsantahay walaal iidow aad baad ugu mahadsantahay buuggaasi runtii waynu u baahannahay materialka caddaynaya madaxbannaanida Somaliland in shicibkeenna runtii in yani u caddaynaya kayskeenu qiimaha uu leeyahay iyo maaragtay iyo sharciyada uu leeyahay aad baynu ugu baahannahay waxaad moodaa Siciid Ibrahim Jirde maca madaxdeenu inay u baahan tahay run ahaantii buugaagta noocaas ah dabcan waa waxyaabaha ka dhimanoo waxaad moodaa madaxdeenu inay kaba maqan tahay qaabka sharci oo qofku haddaanu sharci yaqaan lahayn ama dukaan aad fulinaysid baad sharci yaqaan uga baahan tahayba ama imika qolooyinkiina Yurub joogaa marka lagu soo siinayo baasaboorka ama qasab waa in lawyer kula soo taliyaba marka dawladdeena waxa ka maqan xaggii sharci yaqaanada yani taladoodii baa ka maqan oo Soomaaliya waan iskala hadlaynaa un bay ku bilaabeen mabe odhan baa aborta sharcigii Somaliland aynu noqono Soomaaliya la hadalkeeda waxba inaga xidhan si waxba nagama xidhna haddii wax naga xidhan yihiin sharciga inoo sheegi doona haddana waxba naga xidhna sharciga inoo sheegi doona marka horta waxay ahayd madaxdeenu inay ku noqoto sharciyada oo sharci yaqaano ay samaysato fara badan oo qaar dibadda iyo qaar gudahaba moogtay waxa uu soo bixi lahaa markaa wax Soomaaliya leeyahay inaanay jirinba marka kumaynaan daalnayn imika muddada dheer ee naga luntay Soomaaliya hadalkeeda iyo waxaan macnaha lahayn kumaynaan daalnayn oo waxaan lahayn shortcut baa iman lahayo Soomaaliland dawladnimadeena dhinaca ka dhaqaajin lahayn marka qasab weeyaan in xukuumadda Soomaaliland ay dib ugu noqoto sharciyada dalku leeyahay sharci iyo shuruucdii laga qoray Soomaaliland dawladnimadeeda iyo Soomaaliya jiritaan sharci la'aanta iyo jiritaan la'aanta looyaradii ka qoray waa in dib ugu noqdaan say marka siyaasadda Soomaaliland maanta saddexda xisbi ay hogaaminayaan ay marka u noqoto wax itijaah sax ah haysta marka saddexda xisbi itijaah ka lumsay saddexda xisbi way ku fail garoobeen inay cadeeyaan madaxbannaanida Somaliland saddexda xisbiba waa failan weeyaan waayo saddexda xisbi ma garanayaan waxay ka shaqeeyaan laakiin madaxbannaanida Somaliland saddexda xisbi way ku fail garoobeen marka waxaan lahaa saddexda xisbiba ay iscasilaan hadii aan talahan hadii aniga Soomaaliya hadii dib ugu soo noqono ma ogtahay waayo waxay naga lumiyeen waqti fiican waqti badan way naga lumiyeen majhuud fara badan oo loo baahnayna way ina geliyeen marka waxa weey waxyaabo aan loo baahnayn ayaa oo yani aan daruuri ahayn bay ina geliyeen saddexda xisbi khaladaadkii sameeyeen maanta marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa kana jeenaynaa inuu inta inaga ekaado khaladkoodu in walaal layla Xasan Badani oo runtii ah nin aad activist uga ah Somaliland iyo ma garanaysaa madaxbannaanideeda aad uga hadla ayaa wuxuu soo qoray comment uu leeyahay in run ahaantii yani gaabiska xagga ma garanaysaa siyaasiyiinta Somaliland iyo inay nagu mashquuliyeen wax la yiraahdo ictiraaf raadin iyo guddi ictiraaf raadiska in arrintaasi waa arrintii aynu ma garanaysaa aynu caawa dhan ka hadlaynay waxaan filayaa wax badan oo lagu dari karaa taasi ma jirto canaanta madaxdu ma aha mid aynu ixtiraam darro inaga ah amba dalkeena madaxdeena ma garanaysaa aynu kaga soo horjeedno ma aha in waxa weeyaan nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam asxaabta la tashan jiray khulafaa ar-raashidiin ayaa muslimka ay maaragtay la tashan jiray ay xukumayeen in amruhum shura baynahum soo ilaahay ma oran in arrinteenu waa arrin inaga dhaxaysa amarkeenu amba arrinteenu in waxa weeyaan waa talo in si xushmad iyo ixtiraam runtii ay ku dheehan tahay iyo canaan kalgacal
oo kalgacal iyo wadaninimo ku dheehan tahayoo dalkana qiimo badan iyo kalgacal badan loo qabo madaxdana kalgacal badan loo qabo loo diidayo khaladka oo la saxayo oo lagu canaananayo wixii danta guud ah oo la xasuusinayo taas weeyaan taasina waa sida garabka lagu siiyo madaxda in khaladkana laga qabto saxdana lagu jiheeyo ma garanaysaa lagu canaanto waa sida garabka lagu siiyo dadkeenu waxay moodaan in garab lagugu siinayo uun sacabka in lagu tumo siciidow laakiin run ahaantii garab waxa lagugu siinayaa insur akhaaka daaliman aw madluuman buu rasuulku yidhi markaasaa la yidhi bal isaga oo madluum ah oo la dulmiyey in garab la siinayo dee inaan siinayo garab shaki kama jira iyo sidaan u siinayo laakiin qof isagii daalim ah sideen garab u siinaya markaasuu yidhi kufahu yani dulmiga ka qabo marka waxa weeyaan in madaxdeena dulmi kuma sheegayno xaasha in wanaag bay sameeyaan wanaagaasun baanu rabnaa inay kusii dadaalaan wanaagaasaanu rabnaa dariiq saxa inay u maraan in sharciyadda somaliland ma taalo xamar sharciyadda somaliland hargeysay taallaa innaga quluubteennay taallaa dariiq saxa inaynu caalamka si toosa wuxu weydiisano ayay taallaa in aad baad ugu mahadsan tahay aqoon-yahan siciid waxaan xiisaynayaa barnaamijyo badan oo runtii tayadan iyo tayo ka badanba leh insha allah oo barnaamijyo cilmigaa badan ee sharciyada somaliland iyo ma garanaysaa gooniisutaagga waxaad igu tiri ha odhanayna waxaad tidhaahdaa lasoo naqasho madax waxyaabaad iga saxday ka mid tahay walaal hayo markaa goonisitaag markay noqonayso waxaad noqonaysaa waa dal cusub imika wax yegleelaya ya laakiin marka kelmadaha maaragtay waa la isku xadaa kelmadaha qaarkood waa la isku xadaayo ninka sharci yaqaanka wuxuu ka soo saaraya kelmadda tiraad buu wuxuu ka soo saaraya qaab sharci marka waxa laga yaabaa adigoo xaq lahaa kelmad khaldanoo tiri inay xaqii aad leedahay kaa qaado marka waxa waajib ah waa dastuurkeena qodobka koowaad saasaa ku qoran waxa weeye waxaynu la soo noqonnay madax banaanideeni waa sida sharciga noo dhigayo moogtahayo xataa markaad doonaysid imika markaad dad kale la doodaysid oo aad somaliland ka cadaynaysid waxay tahay uu ku yidhaha somaliland maxay ahayd somaliland dalkaa jirabeedo wixeedii way la soo noqotay marka wax sharciga kuu qoran oo wax saxa weeyaan marka waad ku mahadsan tahay maya waxa weeyaan waxyaaba maya waan xasuustaa run ahaantii kelmadaha program baanu ka samaynay aniga iyo iid xasan aw muuse runtii ahaa programyadii ugu horreeyey ee aanu hawada kasoo galno ururka uu iska lahaa in waxa weeyaan in programkaasi wuxuu ku saabsanaa waxyaabaha terminolojiga ah ee ay dadkeenu ku dhacaan ee dhaawacaysa madax banaanida somaliland ee ay ka mid tahay in safiirka ma garanaysaa soomaaliya iyo somaliland u jooga ay ka mid tahay in ereyada noocaasa runtii maalintaasaanu programkaasaanu ku saxnay in laakiin waxaa jira mar walba eriyo cusub amba eriyo aynaan yani programka aan lagu soo qaadanin eriyo cusub maaha laakiin eriyo ma garanaysa sixitaankoodu cusub yahay marka waa wax muhiima dhammaan programkan intaynu ku jirno amba aynu ururkan maaragtay shaqadiisa ku jirno inaynu dhammaan carabkeena meel walba oo madax banaanida somaliland aynu ka qaldayno ma garanaysa aynu iska saxno insha allah walaalo aad baad umahadsan tahay runtii programku waqti dheer buu qaatay saacad iyo dhowr iyo 40 daqiiqo aynu sii maraynaa sida aan filayo waqti aad u gaaban baan dareemaya inay ahayd waayo waxa weeyaan mawduuca ayaa mawduuc aad u qiimo badnaa oo u xiiso badnaa ayuu ahaa aad baan ugu mahadnaqayaa walaalaha hawada nagula jira waxaan idin xasuusinayaa oon idinkaga tegayaa in uu ma garanaysaa programkan uu soo diyaariyey ururka adkaynta qarannimada somaliland oo ah urur u taagan madax banaanida iyo ma garanaysaa adkaynta qarannimada isu soo jiidka iyo midnimada reer somaliland aad baan idinku mahadnaqayaa aqoon-yahan walaalkay siciid ibrahim jirde aad baad ugu mahadsan tahay programkan qiimaha badan walaalaha dhammaan caawa nala caweeyey ee programka nagula jira iyo walaalaha dib u soo geli doona ee waqti kale daawan doonaba aad baa ugu mahadsan tihiin siciid walaalo
caawa saasaynu ku nabadgelinaynaa walaalaheena inagula jira khadka aad iyo aad baad u mahadsantahay muna iyo inta kale hawada inagula jirtay inala wadaagaysayba aad iyo aad baad u mahadsantahay waan idin salaamayaa aad baa umahadsan tihiin waxaanu idinkaga tegaynaa ilaahay idin wada xafido somaliland allaha xafido danteenna guud allahayna tuso qof walba oo mas-uul ah oo somaliland madaxda ka ah in uu ilaahay waxaynu ka baryaynaa xilka la qabto inuu ilaahay ku asturo inuu ilaahay u hogaamiyo dariiqa saxa ah dariiqa magaranaysaa wanaagga somaliland ah inuu ilaahay u hogaamiyo inuu ilaahay uga baryaynaa madaxdeena sharafta leh dalkeenna iyo dadkeennana sharaf iyo wanaag baynu ilaahay uga baryanaa ciiddeenna iyo calankeenana waynu salaamaynaa ururka adkaynta qarannimada somaliland dhammaan muwaadiniinta jecel qarannimada somaliland iyo wanaaggeeda iyo wadajirkeeda in ay nagula soo biiraan ururka gamco furan baanu leenahay waan kusoo dhawaynaynaa insha allah waxaanu idinkaga tegaynaa fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh